kusoo dhawaad janaalkeyga khulaasee fadlan youtube-keyga haddaa ku cusubtaa subscribe iyo saar videona like saar. maanta waxaa ka hadlaynaa filinka weyn ee Spider-Man. Peter Parker iyo ardayda iskuulkiina ayaa soo baxaya, waxay imaanayaan meel oo caarcaarooyin iyo bahale ay ku jiraan, meeshaas oo ah laboratory. meesha markay ay imaadaan isla markii Peter Parker waxaa qaniinayso caarcaaradina way ka cararaysaa meesheeda ku laabanaysaa. xaafadda imaada ayuu warwareer dareemaya. intaas kadib ninka lagu magacaabo Norman Osborn oo leh xarunta laboratory-ga ayaa heshiis wuxuu la galayaa qolada military-gaasi oo soo saaro ciidan awood leh aad u awood badan. ayaa dhahaya aniga bilaaway isla asiga ayaan isku baroobeynaa waxyaabaha kiimikaalka, laakiin asiga dhan uu isbedelayaa markaas uu bahloowayaa, wuxuuna bilaabayaa inuu dadka ceejiyo oo dilo. isla subaxdii xigtay Peter Parker oo helay awoodii caarcaarada ayaa bilaabaya inuusan ookiyaal u baahnayn, jirkiisana uu dhismay uu la yaabaya aad u la yaabaya. subaxdii xigtay asigoo iskuulka jooga ayuu bilaabayaa inuu gacantiisa ka soo saaro baasha caarcaarada, wuxuuna dudka ugu dhufanayaa mid ardayda iskuulka kamid ah, wuuna la yaabayaa wuxuu sameeyay. intaas kadib mid khamarji oo ardayda iskuulka dhibi jiray ayuu la dagaalamayaa Peter Parker, kadibna feer ayuu ku dhufanayaa ninkii uu faniinayaa. intaas kadib Peter Parker ayaa ogaanaya inuu awood caarcaarada la wareegay, wuxuuna bilaabayaa inuu dirbi ku sacsado caarcaaro. intaas kadib Peter Parker ayaa adeerkiisa Uncle Ben wuxuu uga sheekeynayaa awood uu helay, wuxuuna ugu jawaabayaa waa awood aad u weyn ee wiilkaygu shilaali. Peter Parker oo rab inuu ka faa'iideysto awood caarcaarada ayaa islaamiinka wuxuu imaanayaa meesha feerka lagu ciyaaro si uu lacag u helo oo hadiyad ugu gado jaceylkiisa Mary Jane Watson. Peter Parker ayaa ku guuleysanaya feerkii, laakiin se nasiib darro ninka meesha feerka iska laaya wuxuu isku dayaa inuu Peter Parker lacag ka khiyaamo, laakiin isla markaa waxaa imaanaya tuugin wuxuu dhacayaa lacagtii oo dhan. Peter Parkerna wax ma dhaay uu fiirsanaya. Peter Parker ayaa la kulmaya adeerkiisa oo tuug dilay meeshana ee dad badan buuxaan. Peter Parker ayaa gacanta ku soo dhigay tuugii adeerkiisa dilay, laakiin uu aqoonsanaya wuxuuna noqonayaa ninkii lacagta inuu la futo u ogolaaday. Peter Parker ayaa ninkii gacan u qaadaya wuxuuna ka soo tuurayaa daaqada, ninkiina wuu dhimanayaa. intaas kadib ninkii Norman Osborn ah oo maskaxda ka tagaysa oo korkiisa kiimikaal ku jirta ayaa bilaabay inuu weerar culus ka soo qaado xarunta militariga, wuxuuna baabi'inayaa dhammaan xarumaha militariga, wuxuuna dilayaa ciidan fara badan ayuu meesha ku dilayaa asigoo maskaxdiisa ay maqan tahay oonan ogeyn wuxuu sameynayo. maalintii xigtay ayaa maskaxdiisa soo laabanaysa asigoo waxba ka ogeyn wuxuu sameeyay. intaas kadib Peter Parker ayaa bilaabay inuu awood caarcaarada isticmaalo oo dabaqyada ku boodboodo, wuxuuna noqonayaa superhero ama geesiga xaafadda oo aad loo jecel yahay, Spider-Man. intaas kadib nin journalist oo lagu magacaabo John Jameson oo joornaaladii waxaas ka shaqeeya ayaa Peter Parker wuxuu adeegsanayaa, wuxuu leeyahay waxa ii soo sabirtaa Spider-Man, wuxuuna la yaabayaa inuu sabiro aad u fiican soo qaado, mana og inuu Peter Parker yahay Spider-Man. ninkii sabirada wuxuu isticmaalay joornaalada. Peter Parker ayaa soo guuriyay apartment ee isla ijaarinaya saaxiibkiisa Harry Osborn oo ah wiilka uu dhalay Norman Osborn. Norman Osborn oo maskaxdiisa soo laabatay ayaa si la yeelanaya qolo ganacsatay, laakiin sawirkiisa ayay diidayaan, waxayna bilaabayaan inay qiyaamaan. isla markii wuxuu bilaabayaa inuu ayaga dhan laayo oo kiimiko isticmaalo. intaas kadib geesiga xaafadda Spider-Man ayaa la dagaalamaya Norman Osborn oo ah ninkii dadkii ganacsatada lahayd. ninkii Norman Osborn ah oo kiimikada ku guuleystay ayaa ugu dambeyn wuxuu isku dayaa inuu awood isku qabsado magaalada, wuxuuna ogaanayaa inuu noqdo ninka magaalada ugu awood badan, wuxuuna bilaabayaa inuu la dagaalamo Spider-Man si uu ugu takhaluso oo wadadiisa kaga leexiyo. mana og in Spider-Man iyo Peter Parker ay isku mid yihiin, laakiin intay dagaalamayaan ayaa Spider-Man gacanta waxa ka soo gaaraya dhaawac aad weyn. Peter Parker iyo saaxiibkiisa Harry ayaa xaflad qabsanaya, waxayna martiqaadayaan Aunt May, Mary Jane iyo Norman. isla markii inta xafladda lagu guda jiro ayaa Peter Parker gacantiisa ayuu wuxuu ka arkayaa dhaawacii uu geystay, wuxuuna ogaanayaa Peter Parker iyo Spider-Man inay isku mid yihiin. wuu fikirayaa wuxuuna weerar ku soo qaadayaa Peter Parker eedadiisa, wuuna dhaawacayaa isbitaalka ayuu dhigayaa. Mary Jane oo aan ka warqabin in Peter Parker iyo Spider-Man isku mid yihiin ayaa Peter Parker ku dhaashay Spider-Man mistaqaaniin bilis hadaa istaqaanin sheeg waa jeclahay. isla markii waxaa soo galay Peter Parker saaxiibkiisa Harry Osborn, wuxuuna aad u jecel yahay Mary Jane, wuxuu arkayaa ayagoo gacanta iska haysto, wuuna maseerayaa aad ayuuna xanaaqayaa. isla markii wuu fikirayaa wuu xanaaqayaa, arrintan wuxuu sheegayaa aabihiis, wuxuuna ku leeyahay Peter Parker iyo Mary Jane way khiyaameen oo isjecelyiin. aabihiis ayaa ogaanaya Peter Parker meesha uu ka jilcan yahay, wuxuuna soo afduumanayaa Mary Jane iyo bas ee dad shacab saariin. isla markii Peter Parker ayuu ku leeyahay labadan naf yaa badbaadi doontaa dadka badan ama Mary Jane labadaba wuu sii deynaya. isla markii Spider-Man ayaa isticmaalaya baasha caarcaarada, labadaba wuu badbaadinaya dadka iyo saaxiibtiisba. isla markii Spider-Man iyo ninkii laadarka ayaa is dagaalayo, isla markiina waxay isla galayaan meel dhismo ah, aad ayayna isku dagaalayaan. inta uu dagaalka socday ayaa Spider-Man dhulka la dhigayaa, waxaana la leeyahay adigana waa ku dilaa saaxiibta Mary Jane waa dilaa ee maxaa iga qaadaysaa. Spider-Man ayaa xanaaqa, ninkii ayuu kala tuuraya, ninkii laadarka ayaa laga adkaanaya. isla markiina Peter Parker ayuu tuugaya, waa ku baryaa idhaaf ay dilna ayuu dhaa, laakiin khiyaano ayuu ka wataa, gadaal ayuu daroontiisa ka keenaya si uu Peter Parker qoorta u gooyo. Peter Parker ayaa ogaanaya daroonka ayuu gambinaya, daroonkan asiga caloosh ka galaysa, ninkii laadarka ayna meesha ku dhimanaya. Spider-Man ayaa ninkii laadarka dilay, meesha markuu ku dilay kadib isla markii meedkiisa ayuu soo qaadaya, wuxuu keenayaa guriga ayuuna jiifinaya. isla markii Harry ayaa arkay, wuxuuna la soo baxayaa bistoolad si uu Spider-Man u dilo. Spider-Man isla markii meesha ayuu ka cararayaa. maalintii xigtay waxaana la tusayaa aasitaanka ninkii Harry aabihiis ee laadarka ah. isla markii Harry ayaa bilaabay inuu sabarsiiyo saaxiibkiisa oo dhahaya aabuu dhintay, Allah u naxariisto. isla markii saaxiibtiisa ay isla taagayiin Mary Jane, wuxuuna leeyahay anigana baxaan rabaa, waxaana laga yaabaa inaad dib u soo noqonin ee macsalaam. iyadoo dhaysa iga tagin ayuu ka tagayaa macsalaam ayuu dhahayaa, duudka ayuuna soo aadinayaa. filinkan meesha ayuu ku egyahay. Spider-Man ayaa isla markii noqonaya geesiga xaafadda ama superhero-ga xaafadda, waa inuu duuduulaya. filinkan maanta meesha ayuu ku egyahay. maalin walbana film ayaa soo dhigi doonaa. film YouTube-kayga daa ku cusubtaa subscribe, video-na like saar, isla socod wacan.